shan haween anaga wax ma cunin shan haween aa duurka ku jirnaa maamooyin badan iyo carruur nala socdo inta badan intay soo jiraan waxaan ka codsanaynaa fiidiyogan qof kasta oo gaaro inuuna caawiyo kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh ee ku xiran bartan YouTube-ka Idaaja Media ku soo dhawaada barnaamij aan uga hadli doonno xaaladda liidata ee tahriibiyaal Soomaaliyeed oo ku sugan bariga qaaradda Yurub kuwaasoo dhowr maalmood aan waxba afka saarin intaan barnaamijkan ku guda jirno waxaad daawan doontaan muuqaalo naxdin leh oo ay iska soo duubeen tahriibiyaashaasi sidoo kale waxaad daawan doontaan xaaladahoodii guud iyo sida ay ku sugan yihiin waxaan idin haynaa barnaamij faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda tahriibiyaashaasi haddaad tahay shakhsi ku cusub barteena YouTube-ka fadlan subscribe leh gambaleelka furo oo asxaabtaada ku sheer garee si aad u noqoto shakhsiga ugu horeeya ee hela warbixinnada joogtada ah ee aan halkan ku soo gudbinno mar kale kulanti wanaagsan muuqaal muruga badan xambaarsan oo shakhsiyan aad ii taabtay ayaan ka dhex arkay baraha bulshada waa dhalinyaro hooyooyin iyo carruur Soomaaliyeed oo si tahriiba looga qaaday dalka Turkiga ayagoo raadinaya wadda ay ka galaan qaar ka mid ah wadamada Yurub si ay u helaan nolol dhaantatii ay ka soo carareen ee Soomaaliya muuqaalkan ayaa waxaa hadlaya wiil Soomaaliyeed oo ay dhibaato badan ka muuqato wuxuu sheegayaa inay ku sugan yihiin xadka u dhaxeeya wadamada Belarus iyo Lithuania ee bariga qaaraddaasi Yurub wuxuu wiilkan tilmaamayaa in 120 saacadood oo u dhiganta 5 maalin iyo 5 habeen aanay waxba cunin waxa uu ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha gargaarka ka codsanaya in sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar loola soo gaaro السلام عليكم waxaana dadkii laga qaaday Istanbul oo la geeyay Belarus waxaana qaaday Daawud iyo macalinka iyo badan yihiin waxa joognaa Lithuania iyo Belarus meesha u dhaxaysa shan haween anaga wax ma cunin shan haween aa duurka ku jirnaa maamooyin badan iyo carruur nala socdo inta badan intay soo jiraan waxaan ka codsanaynaa fiidiyogan qof kasta oo gaaro inuuna caawiyo si kasta noo caawi karo ama UN-ka u diro ama dawladana ha u diro meeshaana laga iyadoo xaaladaasi iyo dhibaatooyinkaasi ay taagan yihiin ayaa haddana waxaa maalinta ka dambaysa sii kordhaya dhalinyaro ku dhiiranaysa inay dalka ka tahriibaan ayagoo aan ka fikirayn dhibaatooyinkii ay la kulmeen dhalintii ka horeysay mana jiro qorshe cad oo u degsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa dhalintan tahriibaysa